kulan wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka wargeysyada iyo suuqa kala iibsiga oo ay ku jiraan warbixino xiise leh oo dabcan ay ka mid tahay Cristiano Ronaldo waxa uu isku dayayaa inuu badbaadiyo Pep Guardiola iyo shaqadiisa Juventus oo diiday inay la wareegto Marcus Rashford doorbidaysana la saxiixashada ciyaaryahanka Joshua Zirkzee la yiraahdo oo Manchester United ka tirsan. Sidoo kale waxaan idin hayaa Zubimendi iyo Jamal Musiala oo lagu arkay diiwaanka kooxda Manchester City oo aad u xiiseynaysa, balse Musiala isaga aad waxa ugu tartamaya kooxo waaweyn oo Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain iyo Manchester City ay ka mid yihiin. wararkaas iyo kuwo kale oo xiise leh ayaan idinkugu hayaa u diyaar garooba daawadayaal, noona subscribe gareeya YouTube-ka, sidoo kale Facebook-ga follow iyo like-ta inoogu soo dhufta. waanad ku mahadsantihiin la socodkeena. aynu ku bilowno. ciyaaryahanka kooxda lagu magacaabo Al Nassr ee horyaalka waddanka boqortooyada Sacuudiga Cristiano Ronaldo ayaa sheegay war qalbada jebinaya kooxda Manchester United iyo taageerayaasheeda kadib markii uu fursad u abuuray kooxda Manchester City oo uu sheegay inuu halkaas inta u dhaqaaqo weliba la badbaadin kara shaqadiisa tababare Pep Guardiola ayaa culays xoog leh waxa uu ka haystaa sidii uu u samata bixin lahaa kooxda Manchester City oo waayahan dambe haga xoogani uu ku jiro. Daily Express ayaa sidaas isagu warinaya. Juventus oo Talyaaniga waxay sheegtay inaanay danaynayn inay la saxiixato ciyaaryahanka Marcus Rashford, bedelkiisana ay doonayso in Serie A ay dib ugu celiso Joshua Zirkzee oo Manchester United ku fashilan qudhiisu. kooxda Manchester City la yiraahdo waxa ay beegsanaysaa Martin Zubimendi oo 50 milyan oo lacagta poundka sterling-ka lagu qiimeeyo Spain ka soo jeeda qadka dhexan uga ciyaara kooxda Real Sociedad. 25 jirkan ayaa buuxin kara booska ciyaaryahanka 28 jirka ay isku wadanka yihiin Rodri, kaasoo dhaawac muddo dheer ah qaadanaya. Football Insider ayaa wariyay Manchester City, Liverpool, Real Madrid iyo Paris Saint-Germain waxay ku dagaalamayaan la saxiixashada ciyaaryahanka kooxda Bayern Munich ee qadka dhexe ka ciyaara Jamal Musiala oo 22 jir ah. marka suuqa January uu furmo 150 milyan oo gini ayaa lagu qiimeeyaa xidigan ka fafsayday wariyay. Robin Amorim, tababaraha kooxda Manchester United, waxa uu la saxiixan karaa Paris Saint-Germain weeraryahankeeda Randal Muani oo 26 jir ah bisha January. waxaase uu tartan kala kulmaya kooxaha Chelsea, Tottenham iyo Arsenal. Team Talk ayaa sidaas warinaya. Wolves waxa ay dhageysan doontaa dalabaadka weeraryahankeeda Matheus Cunha oo 25 jir ah bisha January, walow kooxdu ay sheegtay inaanay hadda diyaar u ahayn in ciyaaryahankan ay waqtiga dhow ama suuqa January ku fasaxdo. Arsenal iyo Manchester United ayaa dalab u diray. Mirror ayaa sidaas wariyay. Juventus waxay raadinaysaa 20 milyan inay kula soo saxiixato England difaacida dhexe Vicario Tomori oo 27 sano jir ah, kaasoo AC Milan ka tirsan. La Gazzetta dello Sport ayaa wariyay Manchester City bisha January waxay xiiseynaysaa in James McCarthy oo 22 jir ah ay sii haysato, halka Nottingham Forest, West Ham, Brentford, Bayern Leverkusen iyo Fiorentina dhammaantood ay xiiseynayaan xidiga England ee 22 jirada ciyaartoyda ka da'da yar ka tirsan. Telegraph ayaa sidaas wariyay. Everton iyo Ingiriiska weeraryahankooda Dominic Calvert-Lewin oo 27 jir ah waxa uu heshiis horudhaca la gaaray kooxda Fiorentina bisha January. Newcastle iyo West Ham ayaa sidoo kale xidigan xiiseynaya. Team Talk ayaa wariyay. Liverpool waxa ay rajaynaysaa inay iibiso golayaha waddanka Ireland ka soo jeeda ee kuwa himka laha oo 26 jir ah oo qiimo wanaagsan ay ku iibiso. Newcastle ayaa indhaha ku haysta sidii ay ula saxiixan lahayd laacibkan. Team Talk ayaa isna wariyay. Galatasaray iyo Ivory Coast xidiga garabka uga ciyaara Wilfried Zaha oo 32 jir ah, qandaraaskiisa amaahda ah ee kooxda Lyon waa uu soo gabagaboobi karaa, waxaase uu ku biiri karaa horyaalka waddanka Mareykanka oo kooxo badani ay ka danaynayaan. Wargeyska Mail ayaa wariyay. Miguel Almiron, xidiga la yiraahdo ee kooxda Newcastle, waa uu ka tegayaa bisha January kooxdaas. kooxo badan oo Premier League Mareykanka iyo Saudi Arabia ka dhisan ayaa danaynaya 30 sano jirka waddanka Paraguay ee khadka dhexe garabka ka ciyaara. sidoo kale Football Insider ayaa sidaas wariyay. Manchester United waxay indhaha ku haysaa Royal Antwerp iyo Belgiumka golhayahooda oo la yiraahdo Sene Lamines oo 22 jir ah, kaasoo ay u aragto in uu u noqon karo golhayihii mustaqbal ee ugu wanaagsanaa ee kooxda ay la saxiixato. Telegraph ayaa wariyay. isagaas ayaa ugu dambeeyay wararkii wargeysyada oo aan idinla socodsiinaya anoo ah Muuse Xushow. daawadayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. noo subscribe gareeya qaybta YouTube, sidoo kalena followda iyo like-ta noogu dhufta qaybteena Facebook. waanaad ku mahadsantihiin la socodkeen.